بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد إلهي بقى مهضله الحمد لله رب العالمين حبيسك حيلك بدعكته ونقول إنه أنا حقيقي جود حيلك بدعكت سومالان وحنا حنكم ما أنت شركة شرايطكم قبلنا شركة شرايطه إن حيلك بدعكته مركي ووركو قلي وهولا بدن كشقيي وسارد ورفافتنا يصير في على قرح بدن سقولا فهمين إن صحافة ماذا بنان يصحافة سبورتيكا ولسي صحافة قابل سد سبورتيكا شقده تاي سبورتيكا إني سوين أقول هذين إن الله فصحه باهنتي عيارها أو إن دويتو أدوغيدين إنتي في قرنك أو كلي باهنية markii aan ka wada hadalay mas'uuliyiinta wasaaradda faafinta oo isla fahanay in loo fasaxo oo loo sii daayo saxaafadda say u baahiso maadaama ujeedada ka leenahay tahay in ciyaaraha Soomaaliland gaaraan meel fog taawiyataana waan ka duulaynay taawiyataana anagu waan doonaynay in ciyaaraha Soomaaliland meel wanaagsan oo qurux badan inoo gaaraan dadkana wada gaaraan taa marka laga yimaado hadda waxa jira shuruudo amba arrimo ku xiran siideyntaasi oo ah in saxaafaddu xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ee warqad oo galaasha ka qaadato ta kale waa inuu saxaafaddu ka sharciyeysan tahay wasaaradda warfaafinta oo iyadu ah bartii ugu sareysay saxaafadda xukumaysay in wasaaradda warfaafintu ka sharciyeysay yahay TV-gaasi baahinaya ciyaarahaasi taasi waa saas weeyaan insha Allah hadaynu ka hadalno khadarinta uu sheegay gudoomiye ku-xigeenku wixii naga saarnaa ama baahintii waxa la isla qaatay in loo fasaxo TV-yadii sportska ama TV-yadii dalka ka jiray dhamaantood inay baahin karayaan ciyaaraha horyaalka inoo bilaabmay taasay ku baahin karayaan sidii gudoomiye ku-xigeenku uu sheegay koow in ruqsadii TV-nimo ama loo ogolaaday ay ka haystaan TV-ga qaranka ama wasaaradda warfaafinta ee mas'uulka ka qarankan baahintiisa talabaad ogolaashaheedii ama shuruudihii ama shardiyadii lagu xidhay saxaafadda sportska baahin karayso iyaduna ay siin doonto xiriirka kubadda cagtu labada unba ka hortaagan inay labada soo buuxiyaan shuruudood wax kale oo kharash ama shilimaad oo lagu xidhay ma jiro labada shuruudood ee gudoomiye ku-xigeenku ka hadlay oo sidii loo buuxin lahaa in TV-gaasi uu haysto ogolaashihii baahinta dalka oo ka qaadanayo wasaaradda warfaafinta iyo ogolaashihii ciyaaraha ama horyaalka oo bixinayo xiriirka kubadda cagtu labada markuu buuxiyo kale ciyaaraheenu waxay ku qurux badnaanayaan hadba sida loo baahiyay ee bulshada in daawanayso loo gaarsiiyo taa ay qiimo ku yeelanayaan TV-yada sportskuna waxay u leeyihiin aqoon dheeraada inay baahiyaan ciyaaraha dalka sida adduunkuba ugu leeyahay TV-yadooda baahinta sportska marka waxaynu ku dadaalanaa in ciyaaraha la baahiyo inta ayaynu ku soo gabagabayn lahayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.